waxaan ku faraxsanahay in Ilaahay qadaray inaad halkan nagula kulantaan anagoo shaqadii caadiga ahayd iyo dhismaha wadada magaalada ka soo gasha dhinaca Halaya ama bariga magaalada wadna wadadani waxay ka mid ahayd waxyaalaha wadooyinka ugu dhibta badan ee qofka reer Soomaaliland markuu wadanka intiisa kala ka yimaado bariga Soomaaliland markuu ka yimaado wadada uu ka soo galo magaalada Hargeysa magaaladana qofku sawirku ka qaadanaya waxa weeye wadadu ka soo galay wadadan waad ogeeyday xaaladeeda iyo duruufteedu siday ahayd qofku markuu soo socdo ee uu Halaya soo gaadho ee wadadii barbara corridor bartay ku egtahay uu gaarigu ka soo dago ayuu qofka muwaadinka bilaabi jiray karaahiyo iyo inuu caasimadiisa naco annagu markii aanu meesha nimi mudnaanta koobaad bay noo ahayn labada wado ee magaalada laga soo galaa marka labada wado ee magaalada laga soo galaa ahmiyadda koobaad ay noo lahaayeen maanta waxa reer Somaliland iyo dadka ku nool caasimadaba maanta u farxada in loo dhisayo wadadii waxa iyaduna farxad labaada oo reer Somaliland iyo dadka caasimadda ku noolba ay ku faanayaan inay tahay cashuurtoodii looma dawarin looma bariyo tagin cid looma soo barin shilinkii cashuurta ay bixiyeen baa loogu dhisayaa oo waliba loogu dhisayaa wada la tayaa wadada barbara corridor haddaan tani kaba wanaagsaneyn loogu dhisayo dadka muwaadiniinta ee dalkan iyo magaaladan jecel waxa maanta qofka maanta shaqadan arkaa isagoo faraxsan oo seexanaya isagoo faraxsan oo soo toosaya maalmo marka shaqadan dhamaatana Ilaahay idinkii qofka reer Somaliland ee caasimadiisa imanaya wuxuu soo gali doonaa caasimadda isagoo oo faraxsan oo wax dhiba aan arkayn mudnaanta koobaad mudnaanta labaad iyo mudnaanta saddexaad ba dawladda hoose Hargeysa waxa wadooyin ayaa waayo baahida magaalo in magaalada noqoto magaalo qurux badan ayaa abarta laga dhaqaaqayo mudnaanaha kale xagga dambe ka gali doonaan 4 iyo 5 bay noqon doonaan waad aragtaan tayada lagu dhisay waa aragtaan shaqada socotana waa aragtaan waxa bulshada reer Somaliland ay dhamaantood ka dharagsan yihiin in wufuud caalami ah ka soo degto galbeedka Hargeysa oo kale oo wadamada Itoobiya ka yimaada haday noqoto dawladda dhexe federaalka Itoobiya iyo wufuud kala duwan oo deegaanka Soomaalida Itoobiya iyaguna garabkana waa jijiyo kale ka yimaada dhamaantood waxay soo mari jireen wadada si jaban oo muddo dheer dayac u baahnayd in la dayactirana iyo la hagaajina u baahnayd waqt sidoo kale caasimadda waxa ka bilowday wadooyin tiro badan oo wadada October ay ka mid tahay iyo wadooyin kale dhaqaalaha inta leegeed markii la ku wada fulisay inta soo wado macashuurtii dawladda soo kaliya mise gacan kale waxay ku jirta taageero ummadda Somaliland maanta faanku way u madax banaayeen waxay ku faanayaan inay cashuurtoodii wax ku dhisanayaan dhammaan wadooyin oo waliba ku dhisanayaan wadooyin tayo leh oo qiimo leh oo la qiimaa kuwa adduunka laga dhiso wadada bariga oo maanta socoto waa taagantii wadada galbeedkana habeen dhaweyd waa nagii dhignay ee sida fiican u sameeynay inkastoo wadada galbeedka markii 600 mitir wax yar la markaanu dhameystirnay dhignay ay qolada barbara corridor lagu wargeliyeen buurta kala jeexanagteeda inay ka bilaabi doonaan marka waxaanu isnidhi ummadda cashuurteeda daa ka khasaarinina imika waxaanu sameeynaa wado tayo leh laakiin kumeel gaadha inta qolada markaa barbara corridor wada ay dib u qaadayso waxay nagu wargeliyeen wadada gebiga dib u qaadayaan laakiin shaqadii imika way socotaa laakiin wadada waxaanu u dhisaynaa si dadkana dhibtii aanu ka xalinayno laakiin barbara corridor waxay qolada dhisaysaa waxay yiraahdeen wadada dib baan u qaadaynaa marka lacag aad u badan gelin mayno laakiin wado qurux badan oo lagu sugo inta ay qaadayaan ayaanu sameeynaa tan laakiin waxaan ugu dhameystirnaa halbeegyadii caalamku ku eego wadooyinka tayada leh ayaa lagu dhisayaa si dhameystiran waa loo dhisayaa cashuurta ummadda lagu dhisayaa cid looma barin hay'ad lacag looma weydiin qaaraan cid looma maxa kuwa kale October tag wadada quruxda badan Imperial Hotel maraysa tag dhamaantood wada cid la bariyay oo lacag looga soo qaaday ma jirto ummadda cashuurteeda loogu dhisayaa wuxuu yahay qorshaha inta idin xiga weeyaan wallahi horta anaga qorshahayga koowaad waxa weeye ee anaga noogu mudan waxa weeyaan in Hargeysa ay hesho wadooyin qurux badan oo ay ku cilbaxdo waxa kale oo qorshahaygu yahay dadka iyaga inta badan sugay ee samray inay helaan golo deegaan oo u shaqeynaya oo u adeegaya oo ka shaqeysanay inaanu maalin tusno in cashuurtooda bixiyeen loo ilaaliyay loo xafiday loo tashiilay dabeetna waxay u geysay loogu qabtay
oo weliba wixii ugu mudnaa waddo dadka adduunka inooga yimaadaa wafdi kastoo inoo yimaadaa qof kasta oo reer somalilan oo diaspora oo dibadda ka yimaada somalilan wuu nacaa wuxuu ku nacaa waddo xumada markaa magaaladeena caasimadda ah inaan cil tirano oo ka dhigna caasimada waddooyin fiican leh oo weliba adduunkana loo sheego iminka waad ogtahay waddamada jaarkeena oo dhan waddooyinka waa laga caawiya ama maalgashi ha ku helaan ama world bank ha u maalgeliyo ama waddanay saaxiibin ha u dhiso laakiin tan waxa weeye jabaanna ma samaynayo European Union ma samaynayo cid kale looma bariyo tagin ummadda cashuurteeda baa loogu dhisaya ilaahayna waxaan ka barayaa kol haddii ummadda waxeeda yaraa loo geliyey in ilaahay wadda raandhiis leh inuu ilaahay marka uga dhigo kombanigaan u dirnay shaqada waanu la dardaaranay waa isdalkiisii waa magaaladiisii waad arkaysan shaqada siduu u wado ilaahay idinkii waddo wanaagsan oo hargeysa ku nasato oo aaya leh ayay u noqon doontaa annaguna harsan mayno oo nasan mayno oo daali mayno ilaa dadkaygu ay arkaan inaanu shaqadii ay noo doorteen noo igmadeen inaanu u qabanayno insha allahu tacaala waa u soomanahay waanu u gaajoonaynaa milicdaan u taagnaanaynaa hariya habeen baanu shaqaynaynaa ilaa ay maalin maalmaha ka mida dadka reer hargeysa ay qayrkoodu faanaan yidhahdaan caasimad baan ku noolahay cashuurteeda lagu dhisay emeyer ugu dambayntii waxaa jecel inaan ku weydiiyo marka laga hadlay dhinaca waddooyinka waxaa door muhiima ka qaatay drainage-yada waxaa drainage aad u qiimo badan aad ka dhiseen qaybta ku taala xaraf agtiisa oo waddadan imperialka iyo sidoo kale inta u dhaxaysa faarax Omar iyo guriga Geelaaraba isaguna drainage weyn halkaas mara drainage kale isaguna waxaa jira aad u qiimo badan waqtigii Ingiriiska la dhisay oo daba maray dhakhtarka weyn ee Hargeysa waddadaasna waxaa ka mid ah waddooyinkii ugu bilicda wanaagsanaa awal hore maadaama laba haata hor dhinac u wada socdaan waddada qorshaha idinka yaala iyo drainage-da ku dhow maxay yihiin iyaga waddada qorsheed waxa weeye dhawaan bay bilaabmaysaa ilaahay idinkiina sida ugu dhaqsaa badan baa dhagax dhigeeda loo samaynayaa qorsheeda gacanta lagu hayaa drainage-ka waddada dhinaceeda maray dhakhtarka ka dambeeya haddaad imika tagto dayactir baa ka socda dhammaystiran drainage-ku uu soo buuxsamay ciid waan ka qaadnay waanu banaynay meeluu ka googo'ay meelina waa la dayactirayaa dayactir dhammaystiran baa lagu samaynayaa drainage-ka oo dadku ay arki doonaan roobka dhow markuu doo in mushkiladdu ay sidii hore ay ka yar tahay waddadana mudnaanahay ku jirtaa waddooyinka qorshaysan bay ku jirtaa imika waddooyinka socda ilaa la dhammeeyo waddo kale lama bilaabayo waxaan doonaynaa waddooyinkan aan dhammayno xadhigga ka jarno kuwan markaanu dhammayno ee dadka u sheegnay inay u dhammaadeen baanu u guuraynaa 5 waddo kale marka dadaalku waxa weeye heeriyada la furi maayo waa maalin kasta shaqo waddo way soconaysaa imika matalan xil roobaad baa nagu soo foole waddooyinka waan dhammaynaynaa xilliga roobka shaqadii kaa la sii qabanaya ciidii baa la sii dhigaya waa la sii garaacaya saa dhibicda roobka markay u qaadana ugu yaraan 10 8 intii markaanu kharash u hayno ayaa daamirka la saaraya marka waddadaasi ahmiyaddeeda quruxda ay magaalada u leedahay ahmiyadda dhaqaalihi magaalada u leedahay waan ognahay qorshahay ku jirtaa waddooyinka hore markay dhammaadaan ayaa iyadana lagu